waxa uu ka mid ahaa intuusan iyada qaabilin ama la kulmin kuwa ugu caansan xidigaha fanaaniinta caalamka. waxa uu ku dhacay jacaylkeeda mana uusan ogeyn masiirka iyo cirib dambeedka madow ee sugaya. waxaanu ka sheekeyn doonaa qisada la yaabka leh ee hoos u dhicii ku yimid fanaanka caanka ah Zaynul Malik. waxa uu ka mid ahaa Zaynul Malik kuwa ugu heesaayada kuwa ugu caansan ee ugu loogu jecel yahay. waxay bilaabatay caannimadiisu markii uu la shaqo bilaabay kooxda One Direction. waxa uu iyaga la noqday ama ka mid la xaqiijiyay guulo aad u waaweyn iyo malaayiin qof oo la cajabsan waxa ay soo bandhigaan. waxa uu go'aansaday in uu ka tago kooxdaas One Direction oo isagu kaligiis u gaar u baxo oo heesaha soo qaado. dadku waxa ay filayeen inuu hoos u dhici doono oo saxba noqon doonin maadaama kooxdii uu ka baxay, balse albumyadiisii waxa ay xaqiijiyeen tirooyin aan caadi ahayn oo iibsasho ah oo malaayiin dollar gaadhay. markii uu ka tagay kooxda waxa uu bartay Zaynul Malik gabar dharka xaysiiso la yiraahdo Gege Hadid. gabadha aad buu la cajabsanaa waxa uuna bilaabay inuu xiriir adag oo jacayl la samaysto. 5 sano kadib xiriirkoodii waxa ay gabadhii u yeelatay uur ayay u yeelatay. lamaanahani waxay ku tashadeen inay arrinkaas saxaafadda ka qariyaan iyaga oo arrimahooda khaaska ah gaar ka dhiganaya, balse hooyadeed ayaa waxa ay saxaafaddii u xaqiijisay oo bulshadii la wadaagtay inay gabadheeda uur u leedahay Zaynul Malik. Zaynul Malik aad buu arrintaas uga xumaaday ugana naxay, waxaanu iska diiday inuu sodohdiis la murmo ama la doodo. sodohdii waxay isku bedeshay inkaar qabto, waayo mar walba waxay bilowday inay nolosha labadan lamaanahan ay soo dhex gasho iyadoo si maalinle ah u soo booqan jirtay gurigooda, wax walbana uga digi jirtay ama rosiin jirtay xaaladahooda si ka badbadis ah u soo dhexgeli jirtay. reerkii waxay ku riday madax wareer. booqashooyinkaas faraha badan waxay noqotay mid mar walbaba madax wareer ku rida Zaynul Malik. wuxuu dareemay in arrimihiisii khaaska ahaa faragelin adag lagu hayo oo ay ku hayso sodohdiis ku hayso, waxaana uu noqday mid aad uga xanaaqa markasta oo ay sodohdiis isku daydo in ay muuqaalka ilmaha gabadhooda yarta ay saxaafadda u bandhigto. heer islaantii waxay gaartay internetka ay u bandhigto gabadha sawiradeedii oo ay saxaafadda tusto. Zaynul Malik arrinta aad buu uga xumaaday, waxa uuna uga digay inay gabadhiisa meelaha warwareejiso. ma aysan ixtiraamin ra'yigiisii iyo waxa uu ka rabay Zaynul Malik. weli ma aysan joojin inay soo dhex gasho arrimaha lamaanahan, waxayna bilowday waxyaabo aad u sii waaweyn oo ay ku dhex galayso arrimahooda khaaska ah. fanaankan waxa uu ahaa mid shaqadiisa wata oo muddo bilooyina ka fogaaday xaaskiisii shaqadiisa darteed iyo heesaha uu samaynayo. hooyadeed ayaa ku qancisay inay ninkan isaga dheeraato ka fog oo muddada badan ka maqan in ay kala tagaan. xiriirkooda wuxuu noqday mid aad khatar ugu jira. saxaafaddii ayaaba soo dhex gashay iyaga oo ka warramayaba inay kala tageen Zaynul Malik iyo saaxiibtiis. maalin ay Gege ay dibadda uga maqnayd waddanka ayaa waxaa gurigii ku soo boqday Zaynul Malik oo kaligiis ah aysan cidna la joogin. sodohdiisii dhibta badnayd waxa uu la yaabay ama kadiso ku noqotay maanshaha ay guriga timid sida kadisadaha ay ku timid iyadoo u soo sheegeen imaan doonto. kadibna waxay ka dalbatay in aysan la rabin gabadheeda oo waxay ka dalbatay inay kala haraan. waa uu la dooday oo wixii qalbigiisa ku jira ayuu ku soo faarujiyay, iyaduna waxay ka dalbanaysay inuu gabadheeda ka dheeraado. sidoo kale waxa ay ka dalbatay in gabadhiisa naaska nuugaysa uu ka dheeraado oo ay korin doonto gabadheedu, iyadoo u sheegtay inuusan waxba u qaban karin uuna tarbiyeyn karin mas'uuliyaddaasna qaadi karin. waxa uu ku qayliyay codkiisii ugu dheeraa isagoo u sheegay inay gurigiisa iyo xaaskiisa faraha ka qaado. waxa uu ka baxay ama celin waayay naftiisii ayuu celin waayay, waxaana bilaabay inuu maago islaantii. kadibna waxa uu la xiriiray askarti ayuu la xiriiray si guriga uga saaraan. maalmo kadib waxa uu u yeeray askarti ayaa u yeertay oo rabta inay su'aalo weydiiyaan. waxay ahayd tuhumada loo soo jeediyay iyo tuhunka inuu sodohdiis garaacay oo dhib u geystay, waxaana uu diiday inuu arrinkaas sameeyay. waxaana u dhaartay askartii inuusan dhib ku samayn. askartiina waxay ku xukuntay inay la socdaan xaaladiisa muddo 360 maalmood. sidoo kale waxay askartii qasab uga dhigeen inuu booqdo caalim ama dhakhtar cilmi nafsi ah si uu u xalliyo mushkiladaha dhinaca xanaaqa degdega ah ee isaga haysta. waxa uu sidoo kale ku noqotay kadis aan caadi ahayn markii arrimahaas oo dhan loo gudbiyay saxaafadda iyo warbaahinta oo dadkii oo dhan la wadaagay, waxaana sumcadiisii gelisay khalkhal islaantii sodohdiis ahayd. saxaafaddii ayay u sheegtay oo waxay soo kale ku tiri in ay kala hareen Zaynul Malik iyo gabadheeda. arrintii sidaas kuma dhammaanaysay. Zaynul Malik weli waxaa loo geystay dhibaatooyin aan caadi ahayn waaweyn. shirkadihii isaga barnaamijyada heesaha iyo waxaa la samayn jiray heshiisyada la geli jirtay waxa weeyaan heshiisyadu kala laabteen. lacagtiisii hantidiisiina waxaa ku yimid hoos u dhac aan caadi ahayn oo aad u weyn.
dadkiina waxa ay bilaabeen in ay ka sheekaystaan xaaladda adag ee la soo diristay Zaynulmaalig. mar uu la hadlay saxaafadda ayuu wuxuu yiri waxaan ahay shakhsi arrimaha qoyskayga jecel in ay arrimo khaas ah ay tahay balse waxaa jira qof doonaya in waxaas oo dhan ka shifo. sheekadan waxaan ka faa'iideysanaynaa in faragelinta lamaanayaasha ay keento in qoyskaasi burburo, in faraha looga qaado arrimahooda si ay iyagu u dhammaystaan. khusuusiyaadka qoysasku waa muhiim, ama caano ahaw ama ha ahaanin, in ay dadkaasi iyaga gaar u ahaato ayaa wanaagsan. intaas ayuu inoogu eg tahay. si aad noola socotid waxaad saaran kartaa subscribe, sidoo kale si aad noo dhiirigelisid waxaad saari kartaa like. aad baad u mahadsantihiin.